waxay safaf dheer ugu jiraan cunno laga soo ururiyay masaajidada waaweyn ee magalada garissa waxayna ka soo qaxeen deegaanadii ay deganaayeen kadib markii wabiga tana ku soo fatahay goobihii ay deganaayeen meesha dhibaato weyn baa nagu dhacay oo biyana qaadeen wixii dhan oo aan gaan ku heesano yaa lala tagay biya lala tagay weelal koba iyo wixii dhan markaan meeshaas ka imaanay marka dadka marka qaxaysa biyaha say soo galeen ma sheekay sidii biyaha noo soo galeen amin 9 saac noo soo galeen habeenimo maalinta ayada taariikhda ma ka saay laakiin habeenimo 9 saac habeenimo noo soo galeen hay'adda laanqeyrta cas ayaa halkan xero qaxoti uga sameysay qoysas badan oo ka qaxay jiida wabiga tana maxamed cabdiqaadir waa madaxa hay'adda laanqeyrta cas waxa uu iga warramayaa sida ay dib u dejinta ugu sameeyeen barakacayaashani kacin ilaa maantay waan ku dhex jirnay ha ahaato caawimaad oo ka soo bixin biyihii dhexdooda ha noqoto haddana dejitaankooda markay imaatana waxay u baahdeen dadkii maadaama ay soo barakaceen waxay u baahan yihiin cunto waxay u baahan yihiin musqul waxay u baahan yihiin biyo cabaan intiiba anaga haddaan nahay shirkadda Kenya Red Cross waxaan sumeynay sofa digitaankii waa la dejiyey kaambigan aad arkaysiin baa mid oo kaambiyaha ka mid ah oo cudadooda ay tahay qoysas 395 qoys waxaan u hagaajinay goob oo baalka meel oo musqulo ay oo xaajadooda ay ku gutaan waxa kaloon u hagaajinay waxaan siinay guriya iyo weelashii wax ku karsan lahaayeen barakacayaashani waxa kaalmadani soo gaarsiiyay golaha muslimiinta xafiiskooda garissa waxayna ka soo ururiyeen cunnadani masaajidada waaweyn ee magalada garissa sheekh xasan cabdi gaani waxa uu kamid yahay culimada kaalmadaasi bixinaysay dadkan wabiga barakaciyay naftoodu bay la soo baxeen dharka mala raashin male hoy male sandaro male waka banaankan ay joogan marka raashinka aan siinayno wuxuu ka kooban yahay bariis bur boosho saliid sokor iyo dharba iyo dhar uu ka kooban yahay waxaana dadka ka faa'iideysana u yahay 550 qoys waxaana ma aragtay arintan laga qayb qaadanayaan golaha sare imaamyada haddaan annaga nahay subkem iyo reer cross oo naga saacideynaysa xagga farsamada hay'adda Red Cross wali waxay ka digaysaa fatahadaha uu sameeyay wabiga Tana waxayna shacabka dhulka hoose ku nool ku wargelinaysaa in dhulka kore ay degaan Cabdi Siyaad Kulmiye TV magaalada Garissa.